dhammaantiin iyo shaqaalaha tababaranayaba waa idin salaamaya kulankan maanta agaasime Cabdulqaadir Maalig iyo Cabdisalaam masfiican bay u sharaxeen in aynu faham buuxa wax ku oola ka yeelano khilaafaadka wada shaqaynteena oo kordhiyo go'aan qaadashadeena uu maaragtay sahlo khilaafaadka jirana si wanaagsan iyo meelaha ka kaleemayaan runtii si wanaagsan loo khariidadeeyo iyada khilaafaadku waa badan yihiin sidiisa kan hadda waxaad moodaa inuu xooga saarayo khilaafaadka ku salaysan kuwa maxalliga u badan ceelka iyo cashinta ama ciriiriga nolosha u badan kuwa kalena ay ku jiraan laakiin khilaafadyo badan oo kalena waa jiraan Soomaaliya marka la eego hadda khilaafad siyaasadeed baa jira dowladaha ka dhaxeeya ama bahalka goboleedka ka dhaxeeya ama kuwa sharciyeed baa jira khilaafaadku aad u badan yahay waana loo baahan yahay kulligood la khariidadeeyo detailku si kasta ha kala ahaadee barnaamijkan wuxuu naga sahli doonaa haddii alla idmo damdamiska dhinaca kale aan ku jirro iyo xalinta khilaafaadka fahamkeena kor u qaadi doonaa marka waxaan rajaynayaa dadka la tababaraya inay si wanaagsan uga faa'iideystaan markay hawl galaan ay si baaxad leh oo aan wax ka tag lahayn oo inta ay maskaxda ku hayaan iyo in kale ku soo kordhi kartaba u furan inay soo ururiyaan taas aynu ka dooli doonaa wax ka taraysaa oo wax ku dhisaynaa xogihii hore aanu haynay ama khariidooyinkii hore aan samaynay ama cid kale ay wado arrinta colaadda iyo nabaddu waxay noqotay qayb weyn oo nolosheena ka mid ah in ka badan awoodda aynu leenahay inaynu xallinana waa ka fahamsannahay waxaad moodaa inaynu la qabsannay la noolaanshaheeda laakiin xallinteedu ay noqotay wax maaragtay inala socota nolosheena marka waxaan rajaynaynaa markaan inay arrintaani wax dheeraada ku soo kordhiso fahamkii laga lahaa arrinta xallinta khilaafaadka iyo sidii loo wajihi jiray iyo sidii go'aanka looga qaadan jiray intaba waa soo dhaweynayaa tababarkan qiimaha badan ay soo diyaarisay wasaaraddu aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa marka ugu horeysa runtiina waxaan aad u dareemayaa inaynu soo baranayno oo nolosha iyo horumarka meesha iyo caqabadaha ayna haysta inaynu maalin mid ka soo qabanayno Soomaalidu waxaa la yidhahdaa waa dad xal dadka hortag ma aha Soomaalida marka wax dhacaan bay yaqaanaan si wax loo xalliyo laakiin in waxaan intaanay dhicin laga hortago aad baynu ugu liidanaa marka aad baan u soo dhaweynayaa tababarkaas inuu keeni doono in laga hortago oo la ogaado ilaha ay caqabaduhu ka soo baxayaan meelaha ay ka soo burqanayaan xasaraduhu in la daraaseeyo haddii la daraaseeyana waxay imaanaysaa intaanay soo burqan in isha sacabka laga saaro la celiyo baa imaanaysaa aad iyo aad baan idinku boorinayaa hawsha wasaaraddu si ay xooga u saartay inay tababarkaas laga faa'iideeyo oo tababarku uusan noqonin intii tababarka la qaato inuusan midho dhalin tababarkaas marka la qaato inaan muddo kadib la arko midhihiisii iyo bulshadii oo isbedeshay oo xasaradihii ka yaraadeen ilaahina waxaan ka rajaynayaa inuu idinku guuleeyo haddaan wasaaraddan ka socda hadda aan kelmad ka idhaahdo biyaha la soo qaaday biyuhu waa nolosha waana meelaha inta badan ay ka yimaadeen caqabadaha waxaa la isku dilaa birkad la qodayo waxaa la isku dilaa ceel la qodayo bal waxaan isku daynaa annaguna inaan kala qayb qaadano dadkeennu inay bartaan marka biyo la helayo in la ogaado inay dadka noloshoodii oo dhan tahay ee aan la xanibin oo aan la odhan wixii ceelka la qodaya halka laga qodi maayo inaan wax allaale wixii biyo keenaya inaanana ka qayb qaadan wacyigelinta oo dadka lagu dhiirigeliyo inay wixii biyo keenaya ay soo dhaweeyaan muhiimaddu shirka leeyahay waa laydin faahfaahiyey anigu muhiimaddeeda waxay aan u soo istaagay inaan idinku soo dhaweeyo golahan lagu ururinayo xogaha khuseeya arrimaha nabadaynta taasoo ka dhalatay colaado badan oo soo noqnoqday oo dalkeena ka dhacay muddadii u dambeysay ayaa waxaan go'aaminay wasiirku hogaaminayay in bal xogtan khilaafaadkan dhacaya ee tirada badan iyo soo noqnoqonaya intooda badan oo meelo gaar ku soo noqonaya intooda badan
sidii xog dhaba looga ururin lahaa waxyaabaha kalifa kabacdina markaa la helo waxa kalifa in markaa qorshe laga yeesho hortabin leh iyadoo lagu salaynayo wixii ka soo baxay maxsuul ka soo baxay shirkaas ayaanu qorsheynay muhiimadda ugu weyn oo ka leenahay waxay tahay sidii lagu yareyn lahaa colaadaha ka dhacaya deegaamadeena iyo sidii loo qeexi lahaa colaadahaasi meelaha ay salka ku hayaan ugu dambeyntiina ujeedada guud waxay tahay inaanu qorshe ka yeelano oo wasaaradda qorsheynta oo hadda ka shaqeynaysa 5-year plan aan xogo hordhac ka siino si waxyaabaha kalifaay hadday u baahan yihiin in hortabin looga sameeyo qorshaha dawladda hadday noqon lahayd dhanka mashaariicda hadday noqon lahayd dhanka siyaasadaha hadday noqon lahayd dhanka shuruucda intaba marka in laga sameeyo qorshe looga sameeyo sababta keentay 8 wasaaradood inaan isugu yeerno oo qayb ka ah barnaamijkan iskaashiga dawladeed ee nabad dhiska waa sababtaas weey marka warkayga waxaan ku soo ururinayaa muhiimaddu waxa weeye inaan helo dal nabdoon iyo dad nabdoon islaam weyn oo carruurta u kortay baa foolatay baa la yidhi markay foolatayna muddo cabaaday islaantii oo markii dambe ciyaalkeedana mid caqli badan baa ku jiro hooyo waa dhashay oo waa kaas oo wiil bay dhashay mid kamid ah wuxuu yidhi inta aabe nool yahay hooyo cabaadayn maysa hadalkeena inoo wada inta resource-ku yar yahay reer walibana hubaysan yahay conflict dhammaan maayo laakiin maxaynu ka yarayn karnaa un baynu odhanaynaa waxaan rabaa cuqaasha iyo nabadoonnada iyo siyaasiyiinta iyo dhinac waa laga maagi karaadoo nabadoonnadii war ma nabadoon baa odaygu mise waa nolol doon waa la isweydiiyaa oo reer aan conflict ka taagnayn dhexdiisa odayaasha in badan oo ka mid yihiin maba shaahi karaanba marka waa in wuxuun ka abuuran yihiin daraasadu waa inay si uun bal u sheegtaa waxa ciladuhu meesha ka jiraan waxaa kale oo jira oo aniga ii muuqatay in badan oo ka mid ah marka la xalinayo khilaafyada dadkii samaynayay lalama dhiilgareeyo dadka lala dhiilgareeya waxaa laga yaabaa mid Malaysia beeleed xoogaa ku haysta 10 tiknika ah iyo 200 oo wiil inuu rabsho sameeyay oday caaqil ah oo in lala dhiilgareeyo hadhowtana uu yiraahdo naga waxa ma gashide oo ninkii Malaysia beeleedka hogaaminayay goobta aan la keenin muhiim waxa weeye bal sida aynu u xalino laftigeeda bal inaad qorshaha ku darsataa waxaan kale oo ka xusi lahaa sida western ku xaliyo ama dadka hormaray oo xaliyaan khilaafaadka iyo sida teena loo xaliyaa waa kala jaad waxa sababi kara dadkaas horumaray ee bugaagtiisa hadeeraynu akhrisano iyo inaga teeni dhaqanka ahayd sida loo xaliyaa waa kala jaad waxa muhiim ah bal in marka hore comparison loo sameeyo war inagu traditionally sidee bay waxaynu u xalisay inaga mayna bilaabin ilaa maalintii anigu aan garaadsaday conflict yaa taagnaa haddana dadku waa xalin jiray sidii loo xalin jiray waxa muhiim ah in wax laga qoro oo bal literature-kii hore ee xalinta khilaafaadka aad dib u eegtaa waxaan maanta halkan ku kulannay inaan uga wada hadalno ugana faa'iidaysano fursad qaali ah oo ku saabsan tababarka kor u qaadista awoodda nidaamka go'aan qaadashada hay'adaha dawladda qariideynta qorsheynta iyo maamulinta xalinta khilaafaadka mowduucan waa mid muhiim ah oo si toos ah u saameeya horumarka guud ee dawladnimadeena hufnaanta maamulka iyo dardargelinta adeegyada bulshada nidaamka go'aan qaadashada waa udub dhexaadka hufnaanta iyo horumarka hay'adaha dawladda go'aamada saxda ah ee la gaaro
waxay horseedaan adeegyo tayo leh iyo bulsho barwaaqo ah. Si kastaba ha ahaatee, nidaamkan go'aan qaadashada waa inuu noqdaa mid xoog ogaal ah, cadaalad ku dhisan, isla markaana ka turjumaya dhammaan qaybo ka mida bulshada, gaar ahaan haweenka iyo qoysaska, kuwaasoo ah laf-dhabarka bulshada Soomaaliyeed ama Puntland. Tan labaad, khariidadaynta waa aalad muhiim ah oo naga caawisa inaan si cad u fahamno awoodaha, khayraadka iyo baahiyaha jira ee hay'adaha dowladda. Iyadoo la adeegsanayo khariidadaynta saxda ah, waxaan qorsheyn karnaa si waafaqsan xaqiiqda dhabta ah, taasoo ka hortagaysa kharashka badan iyo shaqooyinka aan miro dhal lahayn. Khariidadayntu waxay sidoo kale naga caawisaa in la ogaado meelaha ay haweenku ka gaabis yihiin ka qaybgalka si loo xoojiyo doorkooda. Kan muhiimka oo ku saabsan khariidadaynta iyo qorsheynta iyo maamulidda khilaafaadka, xalinta khilaafaadka, runtii waxaan dhihi karaa waa xilli fiican bay kusoo beegantay tababarkan iyo qorshahan, maadaama wasaaradda qorsheynta haddaan annaguna aan dhexda kaga jirno oo meel gabagaba uu noo marayo diyaarinta qorshihii 5 sano ahaa oo runtii lafdhabar u ah waxa weeyaan horumarinta dhaqaalaha ay lafdhabar u tahay. Si aad ogsoontihiinna horumarinta dhaqaalaha lama samayn karo haddii waxa weeyaan bulshadeennu aysan isku tiirsanayn, oo horumarintu iyo nabadgelyadu waxa weeye waa wax isku xiran. mudanayaal saa ogsoontihiin Puntland dabcan waa dhul ballaaran, xeeb iyo dhulba, dadkeeduna wuxuu kala firqsan yahay daafaha dhulkaas. khilaafaadkuna waa iska imaan karaa. marka inaan khilaafaadka xal u helno oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan dowladduba ay si isku mid ah u istaagaan oo arrintaa waxa weeye iskaga kaashadaan, ayadoo aan ku salaynayno qorshayaasheena 5 sano ah guddig u yahay amniga iyo cadaaladda. waa waxa weeyaan runtii bogaadin mudan aan ku ammaanay wasaaradda arrimaha gudaha iyo bahwadaagteeda kala shaqeeyay. haddaan mar labaad idin xuso qorshaha 5 sano waxa guddig u ah waa horumarin dhaqaale oo waara. horumarin dhaqaale oo waarana waxa weeye base u sii ah waa nabadgelyada. marka haddii nabadgelyadu ay waxa weeyaan ay si nooga leexdo waxa weeye horumarkaas dhaqaale waxa weeye iyadana waa leexaya. saa ogsoontihiin dowladdu waxay mar walba ku fogan tahay amniga guud ee dalka inay waxa weeyaan muhiimad gaar ah siiso, oo saa ogsoontihiin madaxweynihii 9 bilood buu hogaaminayaa in Puntland amnigeeda la sugo. sidoo kale dowladdu waxay xoogga saartay inay dhisto kaabayaasha dhaqaalaha oo jidadkii iyo aeroboorradii iyo waxa weeyaan ayadana xoogga la saaray. haddana waxaa gacanta lagu hayaa dhammaystirka qorshihii 5 sano ahaa. intaasoo dhan marka waxaa saldhig u ah in amnigii gudaha annaguna aan ka shaqeyno, bulshadeenna aan waxa wacyi gelinno, baarnana aan ogaanana waxa weeyaan waxyaalaha khilaafaadka yaryarka soo noqnoqda salka u ah. marka sidoo kale waxaa qorshaha 5 sano badhig u ah wada shaqeynta hay'adaha dawliga ah iyo bulshada rayidka ah oo waxa weeyaan looga faa'iideysto in sidii bulshada rayidka loo wacyi gelin lahaa si ay uga qayb qaataan horumarka dhaqaalaha. oo horumarinta dhaqaalaha haddii noqon lahayd shaqo abuur iyo maalgashi kulli waxaa beeso ah waa yareynta khilaafaadka waxay soo noqnoqdeen. sidoo kale isku xirnaanta bulshada iyo yareynta colaadaha ayadana dabcan waa qodob kale meesha ku jira oo waxaan raahnaa horumarin dhaqaale ayadoo la sii marayo peace building through development baa loo baahan yahay. waxaan rabnaa mashaariicdeena dhan inay waxa weeyaan ayaduna waxay xoojiyaan ama ay dhammaystiraan waa nabadgelyada bulshada. agaasimayaasha guud, kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaan hay'adaha kale sida BDRC khiyaarta ka socota dhammaan waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacsalaan runtii aad baan waxa weeye u bogaadinaynaa uguna faraxsannahay furitaanka shirkan tababarkan oo abaabulkiisu uu muddo socday. tababarka ujeedooyinkii laga lahaa iyo goolashii runtii waxaa aad u sharaxay cabdiqaadir iyo cabdisalaan oo hay'adda UNDP ka socda oo tababarka wax ka bixinaya. muhiim baan loo arkay runtii tababarkan wuxuuna ka dhacayaa dhammaan maamul goboleedyada waxa weeye Soomaaliya. conflict navigator-ka waxa weeye sida la sheegay war la helaaba tala la hel baa leeyahay. horta marka ugu horeysa conflict-ga in la baaro oo si fiican loo gudagalo oo waxa sababaya la ogaado oo meel walba laga fiiriyo oo xogtiisa la aruuriyo baa waxay noqotay runtii wax muhiim ah oo database loo sameeyo si go'aan gaaris loogu gaaro. maxaa yeelay xogta
iyadaa ku hagta wixii aad maaragtay rabtid qorshayaashaada inaad wax kaga qabatid iyo dhammaan institutionska maaragtay bahwadaagta la dawladda oo ka shaqeeya sida hay'adaha caalamiga in focuska la saaro waxa weeye conflictyadan waxa weeye bal in horta waxa ay meesha ay ka soo butaacayso horta bal horta la diiradda lagu fiiriyo